waxaan rabaa inaan halkan ka faahfaahiyo degmadaan degmad qadiimiya waa degmad taariikhiya waa waqti ay waxay soo martay beelay soo martay deegaanay soo martay waxay soo martay mataqaanaa ka bacdi degmay soo noqotay degma marinana waa tahay oo waqtiyada taariikhdu ay tahayna dawladda siyaad barre wixii ka horreeyay waxay ahayd mataqaanaa deegaanay ahayd wixii dawladda siyaad barrana waxay soo noqotay degmo ama xasuusan kartaa taariikhda degmada laga dhigay wallahi degmada taariikhda waqtiga laga dhigay waqti anagu horta waa yarayno ilmo yaryaraan haynay laakiin waqtiga dawladda siyaad barre oo degmooyinka ugu horreeyay ugu qadiimisanay waa degmadan waa degmo marin la leh Hiiraan oo marin la leh mataqaanaa ilaa iyo galgaduud ay marin la leedahay waa degmo u muhiim ah dawladda Soomaaliya ee dadka shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Hiirshabeellaba waa ilaahay mahadiis in maanta la joogo oo nabad ay tahay oo ummadda Soomaaliyeed mataqaanaa halkaan ay isugu timiday oo madaxda qaranka ay joogto oo madaxweynaha Hiirshabeelle joogo oo taliye ciidamada xoogga joogo oo taliye ciidamada lugta joogo oo madaxweynaha ku-xigeenka gudoomiyaasha gobolada Hiirshabeelle oo dhan ay joogaan saraakiisha ciidamada kala duwan ee maanta joogto anagoo dhaqanka kamid ah oo salaadiinta Soomaaliyeed kamid ah aan halkan ku suganahay waxaan soo marnay mataqaanaa meel la yiraahdo Warciise aan ka soo bilaabay aniga halganka ilaa 120 kiiloomitir ilaa 130 kiiloomitir dhul dhanaan soo jeexna ilaa hataa 140 kiiloomitir la dhihi karo ilaahay cadawga waa naga guuleeyay halkaanaan maanta joognaa horeyaan uga sii socod doonaa deegaanada kale tood waxaan kaloo rabtaan rabaa inaan uga mahad celiyo dadka nala diriska ah oo nala degano mataqaanaa Hiiraan degan waana gacan siiyeen ciidamada xoog waana gacan siiyeen ciidamada qaranku waana gacan siiyeen ummadda Soomaaliyeedna waa mataqaanaa iyaduna gacan siisa dhibaatooyinka deegaankan ama degmadan ay u geystaan argagixisada maxaa loo sheegay wallahi deegaankan argagixisada waxay u geystaan lama kala gaaro waxaan arkayaa hadda warqada ay maanta ay ku qoran yihiin heer hebel iyo heer hebel iyo heer hebel dadka jinfo hoosaad ay u kala qaybaan si aynan u dhamaan colaadoodu marka dadkan dad badan ay ku dhex beerteen wax badan ay ku dheeleen hadda degmadaanu degmo qadiimiyo waxay ahayd mataqaanaa degmadii la raba maanta inay dhisnaato oo qaranka wax u tarto hadda sidaanay u taalaa walow ay hadda degmadaanu dadka iskale ay shakhsiyan ay iyagu ay sameysteen waxa waaye degmadaanu waa degmo sidaas u taariikh weyn oo u fac weyn xagga waxbarasho male caafimaad male weli mataqaanaa iyadu sidii dawladda u dhacday waqtina iska waqti colaadahay ahayd waqtina waxay iska ahayd mataqaanaa dawladdu weli soo ma gaarin dhowrkan iyo 10kan sanane cadawgaana ku kor habsada marka waxaan rabnaa hadda inay dawladihii waxa jooga state-ka jooga waxa jooga mataqaanaa dawladda federaalka xildhibaano iyo senatarra joogo waxaan rabnaa in wax walba oo horumarinaho degmadaanu ay leedahay ambay xaq u leedahay inay soo gaaraan rajaynaa waxa horta ka muhiimsan amniga hadaan la sugan mataqaanaa maba la qaba karaba horumarin iyo waxbarasho iyo caafimaad maba la qaba karaba idoon amniga la sugan in wadankan amnigiisa la sugo markaas ka bacdi horumar ma kara